السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa channelkeenii warsamo bile. Maanta waxaan leeyahay video kooban oo ku saabsan shaqooyinka ugu wanaagsan adduunka amba shaqooyinka la rajeynayo 2000 ilaa sanadada soo socda ilaa 30 laga gaadhiyo ugu activesan uguna mushaharka badan ee lagu baahida badan yahay. Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa 7 kamid ah ama 7 ugu horeeya. 7daas aynu kalba mid soo qaadan doonaa iyadoo kooban. waxaan runtii isku raacay ururada amba organisationada ugu waaweyn adduunka dhinaca dhaqaalaha iyo careerka iyo shaqooyinka shaqeeya ama ha ahaato World Economic Forum, Futureland, LinkedIn, Glassdoor, Coursera, dhammaan platformkaas oo dhan waxay isku raaceen inay yihiin 7 kuwa ugu mudan ay tahay qof kasta inuu at least wax ka yaqaano. Okay, ta koowaad baan soo qaadan doonaa. Ta koowaad waxa loo yaqaan data analysis. waan ognahay dhammaan data analysis-ka baahida loo qabo maanta. horta marka ugu horeysa haddaan wax yar ka qeexo data analysis-ku waxay tahay wax weeye waa process-ka lagu fakro ama lagu nidaamiyo ama lagu diyaariyo data aan macna sameynayn. marka maanta waynu fahmi karnaa industries-ka ama business-ka adduunka ku nool oo dhan waxay u baahan yihiin decisions bay u baahan yihiin. marka decision-ka ma go'aan marka la qaadanayo waxa loo baahan yahay in lagu qaato facts-kii iyo ka imanaya source kala duwan meelo fara badan oo kala duwan. wax weeyaan wax laga yaabaa inaan isku habeysnayn isku diyaarsanayn yacnihii waxay dhaatadan sheegayso ama macluumaadkan wuxuu ka hadlayo inaan la sheegi karin. qofka data analysis-kii waxaas dhan buu gaada garanayaa, isku ururinayaa, compile garanayaa, isla markaana wuu interpretation ku sameynayaa, dana wuu share garanayaa si loo xaliyo problems taagan isla waqtiga la hadlayo. kalabaad waa software development isna waxa weeyaan waa qof engineer ah ama waa software engineering oo inta badan shaqadiisu tahay inuu develop gareeyo ama uu maintain gareeyo ama uu ilaaliyo ama uu horumariyo technological system uu leeyahay organization ama company ama whatever. marka qofkaasi wuxuu dhisayaa ama uu ilaalinayaa ama uu maamulayaa organization dhan ama company dhan technology ugu shaqeynayo. waa adduunka maanta waa digital, shaqo kastoo la qabanayo waxa facilitate gareynaya ama fududeynaya wax weeyaan waa technology. therefore technology-dan la isticmaalo waa software dad baa develop gareynaya oo aqoon u leh oo software engineers ama software developers. marka taasna waa talabaad waliba tan baa ka mushahar badan laakiin xagga availability-ga iyo muxuu ahaa xagga fursadaha shaqada ay ka fiican tahay data analysis-ku. Okay, qodobka saddexaad user experience wax weeyaan waa qof ka shaqeynaya isagu customerska feedback ay soo bixinayaan amba aragtida ay ka qabaan product-ka ay iibsanayaan ayuu qofkaas ka shaqeynaya si markaa product la soo saarayo ay noqdaan kuwo dadku u baahan yihiin. marka wax weyn taas waa shaqo aad u muhiim ah. qofkaas research ku sameynaya, wax u design gareynaya, market boost ku soo sameynaya, research ku sameynaya. iduna wax weeyaan inta badan wax la xiriira product design-ka iyo research laga sameeyo. qodobkan afraad wuxuu noqonayaa web development waa qof skill ama xirfad u leh sida loo develop gareeyo website ama loo design gareeyo, gaar ahaan qaybta loo yaqaano SEO ama search engine optimization. kaasi wuxuu ka caawinayaa website-kaasi inuu noqdo mid mar kasta ranking sameeya oo iyadoo magacaaga aan la qorin laakiin macluumaadka ku soo gudbiso website-kaaga haddii la search gareeyo in website-kaaga soo bixi karo. taasina waa muhiim oo in wax weeyaan baahida website-ka loo qabo maanta waa high demand. business kasta at least maanta wuxuu baahan yahay website uu soo iska leeyahay si uu ugu soo bandhigo ama uu kusoo showcase gareeyo profile-kiisa. xataa marka laga tago business ba individual waxa jira blogs oo qof kasta uu baahan yahay maadaama adiga tahay qof shaqo taga oo shaqo raadinaya in website yeelato waa muhiim si aad career-kaaga iyo waxyaabaha soo qabatay experience-kaaga hore aad u soo bandhigtid. qodobka shanaad waa project management waxa weeyaan sun waa shaqooyinka ugu muhiimsan maadaama shaqo kastoo la qabanayo project ay leedahay. marka qofkan dhinacyo badan buu ka shaqeynayaa. waxa looga baahan qofkaas inuu ilaaliyo schedule-ka ama waqtiga iyo budget-ka iyo communication inuu xiriirka dhinacyada kala duwan ee muxuu ahaa mashruuca ku jira uu isku hayo si loo gaaro wixii loogu talagalay amba time-ka loogu talagalay waxna ku dhamaado. qofkaas wuxuu qaban karaa boosino kala duwan maadaama yahay qof si guud mashaariic uga shaqeynaya. leadership buu qaban karaa, communication buu qaban karaa, planning buu noqon karaa. marka waa boos runtii isaguna aad iyo aad muhiim u ah sector kasta oo qofkaasi uu rabo inuu ka shaqeeyo. yacnihii maaha wax cid ama ku xidhan shaqo gaar ku xidhan oo sector gaar qof inuu ku takhasus ay tahay. waa muhiim marka qaar laakiin si guud project management saas u yahay isagu fiil gaara. Okay, qodobka lixaad waa account management waxa weeyaan wuxuu la xiriiraa
maamulidda qofku maamulayo akoonka ay leedahay shirkadu ama company ama ururkuba. sidaas darteed wuxuu qofku shaqeynaya social mediaha, akoonada social mediaha ama ha noqoto heshiisyada la gelayo muxuu ahaayey company kale dhinacyadaas dhan bay ku sanaysaa. marka waa qof looga baahan yahay xirfad yeesho negotiation skills iyo muxuu ahaa qof looga baahan yahay qof markasta u soo jeeda yacnihii wacyiga kolba xaalado halkay marayaan. okay, ta ugu dambeysa waxaa loo yaqaanaa content creation and management. content creation waxa weeye inaad diyaariso amba storytelling sida loo sameeyo amba macluumaad ku saabsan shay ku saabsan inaad diyaarisid si dadku ay u soo jiitaan. marka taasina waxa weeye runtii waxay u baahan tahay qofku inuu qof creative waxaan u soo jeedin noqon wax original isla markaana dee fahmi karaya wax dadku u baahan yihiin oo ka jawaabi karaya saxan shay qofku ka hadlayo inuu yahay shaygaasi shaygii loo baahnaa isagoo taaban dhinacyo fara badan oo shaygaasi leeyahay. marka waxa weeyaan creationkaasi waxaad diyaarinaysaa ama qoraal diyaarinaysaa oo research sameynaysaa ama video diyaarinaysaa ku saabsan animation. marka contentkaasi waa content dhinac kasta khuseyn kara ama caafimaad ha ahaado, waxbarasho ha ahaado, ama horumar ha ahaado, ama ganacsi ha ahaado, ama marketing ha ahaado. waxay macluumaad loo baahan yahay baa soo diyaarinaysaa. marka waa laga iibsanayaa amba adigaaba soo bandhigo channel adeega ku soo bandhigaysaa maadaama dad badan ku xidhan yihiin. intaas ay ka kooban yahay maanta video kan xiga saas nabadgelyo. waxaan ka codsanayaa dhammaan daawadayaasha subscribe aan saartaan channelka.